waxaa maanta magaalooyinka Dila, Boorama iyo Tulli si weyn loogu soo dhaweeyay Suldaan Cabdinuur Sheekh Cabdilaahi Jimcaale oo ka mid noqon doona bahda dhaqanka ee gobolka Awdal dhawaana la shaaciyay inuu ka mid noqon doono bahda dhaqanka ee deegaanada gobolada galbeedka Somaliland waxaana soo dhaweynta suldaankani ka qayb qaadanayay bahda dhaqanka ee gobolada galbeedka Somaliland odayaal waxgarad siyaasiyiin iyo bulshada qaybaheeda kala duwan waxaan ku soo dhaweynaynaa suldaanka cusub ee beelaha Jibraacin maalinta dhaweyd cilaaminay haddii la yidhaa Suldaan Cabdinuur Sheekh Cabdilaahi Jimcaale waad mahadsantihiin suldaan halkani waa Tulli waa dhulkaad u ahayd suldaankaad u noqotay haddii la yidhaa waa beelihii Tulli waxaan kugu soo dhaweynaynaa gacmo furan waxaan soo dhaweynaynaa si sharaf iyo maamuus iyo qiimo leh suldaanka da'da yar ee ku soo biray salaadiintii bariga Boorama aad iyo aad baan u hambalyeeynaa haddii aanu nahay reer Tulli waxaan maanta soo dhaweynaynaa suldaanka cusub Suldaan Cabdinuur Sheekh Cabdilaahi Jimcaale waa suldaan da'yar waa suldaanadii loo baahnaa si farxad maanta waxaanu joognaa magaalada Tulli aad iyo aad baad mahadsantihiin soo bixitaanka aad xilliga ay cadceedu kulushahay bannaanka u soo baxdeen soo dhaweynteeda insha Allah ilaahay waxa ka bariyaa aniguna kii cadaaladiisu ku maamula iyo sinaan inuu ilaahay iga dhigo xilkaadii idmateena Allah ay fudaydiyo intaasi kadibna waxa suldaanka loo soo galbiyo gudaha magaalada Boorama halkaasi oo bahdii dhaqanka ee kala duwaneed ee soo dhaweynta suldaanka ka qayb qaadanaya bulshada kala duwan ugu hambalyeeyay suldaanka guud ee mid kamid ah beelaha deegaanka ku ah gobolada galbeedka Somaliland Suldaan Cabdinuur Sheekh Cabdilaahi Jimcaale allana uga bariyay in xilkani loo igmaday ilaahay ku asturo halkan waxaan ku soo dhaweynaynaa suldaanka cusub ee Cabdinuur Sheekh Cabdilaahi Jimcaale oo maalin dhaweydtii lagu shaaciyay calaamad suldaannimadiisa ee beelaha Jibraacin maantana halkan waxa weeyaan waa soo dhaweyn oo soo galayo magaalada Boorama markaa ka soo qaybgalayaasha dhammaanteed waxa aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin yar iyo weyn farxad weyn bay tahay maanta inaan suldaankii guud ee degmooyinka faraha badan laga soo jeeday degmada Boorama Baki Dila magaalo cad Wajaale waa suldaan intaas oo dhan betela ma aha suldaanku waxa soo saaray beelweyntu waxay u soo saartay inuu bulshada u adeego annaguna aad iyo aad baan uga aqbalnay in ay noo soo cumaamadaan nin marka horeba u adeegi jiray bulshada halkan si fiican ugu soo dhaweynana suldaanka guud ee beelaha Jibraacin Cabdinuur Cabdilaahi Jimcaale oo aan leenahay suldaan ku soo dhawow xilka aad qaadayna Allah kugu asturo Cabdilaahi Jimcaalana welcome baan leeyahay ku soo dhawow suldaannimada cusub Allah kugu asturo kii dantiisa iyo dalkiisa iyo diintiisa facan Allah ka yeelo beesheena Jibraacin waxa la inaga rabaa beelaha Samaroon oo dhanbaba ina walaalkeen si fiican loo garab joogsado dhulku waa cagaar suldaanku daayar yahay waxa weeyaan sanad barwaaqa ilaahay nooga dhigay isagana magaciisa horaaba loo shaaciyo waa suldaan barwaaqo farxad baa isu keentay waxaan u soo baxnay suldaanka ugu daayar ugu cusub ugu aqoonta badan ugu kartida badan Suldaan Cabdinuur Sheekh Cabdilaahi Jimcaale ka hayay waxaan leenahay waanu ku hambalyeeynaa waanu ugu ducaynaynaa ilaahay xilka ku fudaydiyo waxaan maanta aad ugu faraxsanahay runtii inaan kala soo qayb galo suldaanka shaacinta ama soo dhaweyntiisa soo dhawow suldaan waxaan ku soo dhaweynaynaa gobolka dhammaan oo gobolkaagiya waxaan ku soo dhaweynaynaa degmada iyo meel walba ugu dambeyntiina suldaanka cusub Suldaan Cabdinuur Sheekh Cabdilaahi Jimcaale oo halkaasi ka hadlay ayaa bulshada ugu baaqay inay la shaqeeyaan dhammaanba dadweynaha ka yimid degmooyinka kala duwan aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa waxaan idin leeyahay jazaakumullahu khayran jazaa runtii sida hore loo sheegay xilka suldaannimadu ma ahayn xil anigu aan codsaday ama aan dalbaday ama xataa lagu tartamay oo dhowr qof ay ku tartameen wuxuu ku yimiday doonista bulshada sidoo kale reer Wajaale waxay aad iyo aad ugu hambalyeeyeen igu soo dhaweeyeen magacaabista xilka la magacaabay oo ay yiraahdeen waxaad noo tahay maanta laga bilaabo sultaankii ganacsatada maadaama aad ganacsiyana tahay xilkii odayna aad ku soo biirtay maasha Allah degmada Dila saas leeg degmada Boorama joogna saas leeg dhammaantiin ba dadkiina waxaan ka codsanayaa duco inuu ilaahay xilka igu asturo igana dhigo kii ajiye xasanaad ka shaqaysta waxa kale oo idin ka codsanayaa dhammaantiin ba far kaliya fool ma dhaqdo qofna keligii ma wax ma qabto in aad
maskaxdiinna muruqiinna maalkiinna iyo caqligiinna fiican igu taageertaan si aynu bulshada ugu adeegno horumarna u gaadhno waa Cabdilaahi Daahir waa STV-ga caalamiga SAB magaalada Boorama.